bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka janaalkeena xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona haddii rabbi qadaro xulashada xarumaha dowladda ee muqdisho iyo bixinta lacagaha laaluushka iyo sidoo kale daawadayaal gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk Soomaaliya oo la kulmay danjire cali cagabuur maxay ka wada hadleen sababaha haatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud eedeymaha loogu jeedinaya iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo markan waji cusub oo siyaasadeed la soo baxay iyo kan galmudug oo dagaal siyaasadeed oo cusub oo ku bilowday ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like share-ka commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warka xulashada xarumaha dowladda iyo muqdisho oo haatan bixinta lacagaha laaluushka ay ka bilowdanayso inkastoo ay dowladda federaalk Soomaaliya ay degan tahay caasimada dalka oo kaliya ee magaalada Xamar aysan jirin awood xafiis ee ku baahsan gobolada dalka iyo guud ahaan dhulka Soomaaliyeed xarumaha iyo xafiisyada dowladda ay waxaa haatan ka soconaya qeybo kala duwan oo laaluush looga qaadayo shacabka muqdisho xarunta dowladda ama xafiisyada waxa ay furan yihiin inay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan una fuliyaan danahooda ka soo gala xafiisyada dowladda iyo xarumaha adeega dadweynaha dadka shacabka ah ee ku dhaqan caasimada waxa ay aad uga hadlayaan arrimaha dhibaatooyinka ay haatan mararka qaarkood la kulmayaan fiisha kuweerara iyo sidoo kale xarunta baasaboorada laga bixiyo taasi ayaana waxay noqotay dhibaatada joogtada ah ee bulshada Soomaaliyeed ee la kulmayaan shacabka reer muqdisho ayaa waxay yihiin kuwa meel kastoo ay tagaan laaluush laga qaado laaluushka ayaana waxa uu yahay saameynta ugu badan ee shacabka reer muqdisho haatan haysta qof walba ayaa hadal haysa sida uga hortagi doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhibaatooyinka laaluushada ee mararka qaarkood bulshada reer muqdisho ay la kulmayaan waxaana qof walba ay hadal haysaa xaalad kasta oo sida mar kasta looga gudbi karto dhibaatooyinka mararka qaarkood bulshadu ay la kulmayaan xaaladaha guud ayaa waxay u muuqanayaan kuwa cakirnaan gooni ah shacabka Soomaaliyeed gelinaya waxaana bilihii ugu dambeeyay jiray in maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale xarumaha kale ee dowladda federaalk Soomaaliya shacabka markii ay shaqooyin ay u doontaan lagu xujeenayo laaluush taasoo la micnaah in saameyn badan ay ku yeelanayso shacabka qof walba ayaa hadal hayso iyadoo ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay in mar walba la garab istaago isla markaana laga hortago shakhsiyaadka laaluushka ka qaadaya waxa ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish waxaana la sheegay in Cumar Filish uu yahay shakhsi dhibaato ba'an ku haya shacabka reer Muqdisho inkastoo shacabku ay doonayaan inay wax waliba ay ka guuleystaan isla markaana dhibaato kasta oo soo gaarta ay noqoto mid ay mar walba ay ka fogaadaan haddana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa haatan waxaa looga fadhiyaa in uu dadaalo badan uu bixiyo si uu uga hortago dadka shacabka Soomaaliyeed laaluushka ka qaadayo dhinaca kalena daawadayaal weli waxaa taagan xaaladaha adag ee guddiga golaha shacabka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay si weyn u hadlayaan xaaladaha kala duwan ee mararka qaarkood jira oo ku aadan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan waxa ay noqonayaan kuwa haatan toos ugu biiraya dowladda federaalk Soomaaliya gaar ahaan xubnaha sarsare xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah saraakiisha sarsare ee haatan dowladda federaalk Soomaaliya ahna taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa durbaba waxaa la sheegay in dhaqdhaqaaqyo xoogan oo bilaabay waxaana xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya isbedel kala duwan uu haatan uu doonaya inuu ku sameeyo dhammaanba xarumaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dhibaateyn jiray shacabka Soomaaliyeed iyadoo Mahad Salaad uu hore u ballan qaaday inuu ka hortagayo shakhsiyaadka dhibaatooyinka iyo tacdiyada kala duwan u geysanaya shacabka ku dhaqan magaalada tani caasimada Muqdisho shacabka reer Muqdisho ayaa dhibana waxay u yihiin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Kulana Jiis iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Dheere Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haatan xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa waxaa laga sugayaa boogihii dhibaatooyinkii kala duwanaa ee shacabka Soomaaliyeed soo gaaray in uu ka dhayo maadaama uu yahay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxaa looga fadhiyaa inuu isbedelo waaweyn
uu la yimaado uu ku aadan xaaladaha bini'aadanimo ee marka qaarkood shacabka Soomaaliyeed ee la kulmayaan. Qof walba ayaa hadalhaysa xaalad kasta oo dhibaatooyin ah iyo sida mar walba looga gudbi karo dhibaatooyinka iyo qalqalka amni ee marka qaarkood ka jira caasimada dalka ayaa haatan waxaa laga sugayaa in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay wax badan ay ka bedesho tacadiyada iyo dhibaatooyinka joogtada ah ee marka qaarkood ay la kulmayaan bulshada Soomaaliyeed. waxaan la ogeyn wax walba sida ay isku bedeli karaan, inkastoo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Cabdiraxmaan Dheere shakhsiyaadkii dhammaanba hay-adda NISA dadka shacabka ku dhibaateyn jiray ay Muqdisho isaga baxeen. waxaan la ogeyn wax waliba sida ay noqon karaan iyo xaalad kasta sida loogu gudbi karo. bulshada Soomaaliyeed ayaa il gaar ah ku hayso in ay tallaabooyin fiican oo bulshada faa'iido ugu jirto ay keeni doonaan, inkastoo xaaladaha kala duwan ee mararka qaarkood jira ay noqonayaan kuwa ka sii daraya. dhinaca kalena daawadayaal hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftigareen ayaa wajiyo cusub la yimid durbaba siyaasadiisana doonaya inuu ka hortago qof walba oo caburin ku sameynayso. hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah shakhsi dhibaatooyin fara badan shacabka reer Koonfur Galbeed u soo geystay ayaa haatan waxa uu doonayaa in saaxiib dhow uu la noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo baqdin qaba ayaa waxa uu haatan rabaa in uu sabasho wanaagsan uu la yeesho kooxda cusub ee Villa Soomaaliya, isagoona ballanqaadyo fara badan u sameynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftigareen ayaa haatan waxa uu doonayaa in wax waliba caqabadaha uu si fudud u kaga gudbo, isla markaana xaalad kasta oo culays ah oo markasta ay noqoto mid uu ka guuleysan karo. madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kamid ahaa shakhsiyaadka sida weyn ugu shaqeynayay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. haatanna waxa uu doonayaa in uu nidaamkaasi uu ka gudbo, isla markaana nidaam cusub uu la yimaado uu ku aadan in uu ku taageero madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ahaa shakhsi inta badan si weyn uga soo horjeeda go'aamada mararka qaarkood ay qaadanayaan midowga musharaxiinta intii ay mucaaradka ay ku hayeen Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, balse Cabdicasiis Laftigareen ayaa ahaa mid si weyn uga soo horjeeda go'aan kasta ay qaataan midowga musharaxiinta. haatanna waxay doonayaan midowga musharaxiinta inay tallaabooyin waaweyn ay sameeyaan oo ku aadan sidii ay kaga hortagi lahaayeen go'aan walba oo qaadanayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya. dhinaca kalena daawadayaal madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa ah shakhsiga kale ee sheekadan ay taabanayso, waxaana madaxweynaha maamulkaasi Galmudug dhammaanba siyaasiyiinta deegaanadaasi ay doonayaan in dhammaanba laga takluusiyo. waxaana la sheegayaa in haddii Axmed Cabdikaariye Qoorqoor meesha laga saaro uu madaxweynaha maamulka Galmudug uu noqon doono Axmed Macalin Fiqi, wasiirkii hore ee amniga maamulka Galmudug. Axmed Macalin Fiqi ayaa taageero badan waxa uu haatan uu ka helayaa kooxda Villa Soomaaliya haatan ku sugan, waxaana qorshaha ugu weyn uu soconayo uu noqonayaa mid lagu takluusanayo hogaamiyaha Galmudug. inkastoo hogaamiyaha Galmudug lagu eedeynayo waxqabad la'aan iyo burbur uu u geystay maamulkaasi, waxaana la sheegay in xilal badan oo wasiiro ah maamulkaasi aan lahayn. taasina waxaa haatan u muuqanaysaa in dhammaanba uu gacanta uu ka haysto hogaamiyaha maamulkaasi. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal waana geynta daba daawaday. haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeena leega shaarka iyo commentiga noogu dadaala. waadna mahadsantihiin. nabadgelyo.